dawadayaal hadda waxaan taaganahay gidibka Madoodali oo u dhaxeeya tuulooyinka ababase qabaleeyada Bildiq iyo Lafajaad oo ka tirsan degmada Gablelu ee gobolka City warbixin ayaan ugu talagalnay inaan idinka sameeyno gidibkan xilligii la aasaasay faa'iidooyinka uu hayo gidibkan ayaana kulmiye meesiyada xoolaha iyo bulshada tuulooyinka ku hareeraysan bulshaduna ay dhanka kale ka cabanayaan carro badan oo gidibkani gashay taasina aasaaskii kadib 10 sano ka hor oo la aasaasay gidibkani ama base la qoday oo biyahani galeen warbixinta waxay ugu wehelinaya adeero Cali Jaamac oo kamid ah waxgaradka degmadani Gablelu oo warbixinta si faahfaahsan inooga warbixin doona waan ku soo dhaweynaya marka hore adeero bal waxaad si guud nooga warbixisaa gidibkan xilligii la aasaasay bulshadu baahidii hore u qabeen iyo baahidii ay kaga baxeen ugu horeynta magtaay noogu bilow gidibkan Madoodali waxa la aasaasay 10 sanadood uu joogaa waxa laga kaaftoomay oo laga baraaray 8 9 ceelka aba la shubayay waa laga faa'iiday gidibka dhaartii la qoday iyo joogeena ina laga cabo gidibka oo adduunyada reeraha oo dhan ay ka cabaan oo ciisuhu halka taageero fiican ka helay oo laga dhaansho dhaamanka qarid baan waxaan ku ranaa dameeraha ayaa ku soo aroorina dumarka baa ku soo aroora qarid bay lagu dhaanshaa dameeraha qarid baa lagu raraa Allahumma musta'an gidibkuna imika waagii hore iyo maanta sidoo uu yahay isku mid maaha waagii la qoday oo dheeraa imika uu aasmay wuxuu doonayaa dhibaatooyinka ku soo durkay ina ciida laga carra qaado oo la baneeyo oo biyuhu kolkuu gidibka ciidu ay galeen ay ciidu kor u kicisay biyuhu hore u dhaafaan waaga la qoday ee gidibka la xidhay halka laga xidhay dikada baabuurta iyo dul mareysay dikada baabuurta way dhaafaysay biyuhu ma qabanaynin sanadka maanta kolka laga bilaabo gaariyaasha gaadiidku biyuhu way mari waayeen biyuhu kolka carradu kolkay kor u dalacantay biyuhu korba guudkay mareen kolka dad iyo duuyo waa laga talaabi waayay dixdii oo kala iyay noqotay labada qaar baa la kala joogsadaa dhibaatada waxa keenay waa carrada ku soo korodhay ee kor u soo qaaday daadku soo qaaday ee kor u soo kaxshabiyaa ayaa keentay gidibka wuxuu u baahan yahay ina la carra qaado ciida laga qaado goobaha ay dadku ka soo aroorayaan gagacas raasajanno harboor godka baardaga kafralo haanka weyn intaasoo gaabad harboor yare xorra wixii ka sokeeyo dhanba intaasoo dhan baa laga soo arooraa bulsho badan ay biyaha ka tacaba iyo dunyaba waxay gudaan biyahaasi waxay gaaraan biyaha sanadkiisa gaaraan biyaha dhaarta biyaha sanadka ay galaan sanadkiisana way gaaraan marka sanadku ku sima xilliga guga iyo ku sima sanadka gudeen sanadkaga biyaha lagu sima xilliga uu guro ma jira laakiin maanta xilliga uu guro markii la tahay uu guray markaasi ninkaana waxa keenay waa carrada biyaha kor u kicisay biyihii hore u dhaafeen biyaha halka ka tagay waxay galaan canfar yaa ka faa'iideysata badda qarmool bay ugu darmaan badda qarmool halkay ku daraana biyaha badda ee iyay u macaanaysaa sidaa bay beeraha iyo nadaab uga heshaa laakiin sanadkan maanta maalintii ka horeysa waa laga xidhay way in yar ba u tagaysay ma jiraan maadaama duunyadii iyo dadkiiba gidibkan ka wada cabayaan hal goob duunyadii iyo dadkii bulshada cabaysay in biyahan ay caafimaad darro kala kulmaan wax caafimaad darro oo ay kala kulmaan oo ku soo kordhay ma jiro waa kuwa xoolaha ka cabayay way fiican yihiin biyahaasi waxay leeyihiin xooluhu biyaha lagu cabayo in baa milig wax la yiraahdo ku galaa inina way ku naaxdaa waa lagu naaxaa biyahani waa xareedii biiciga samada ka daay way fiican yihiin waa hadda waxyaabaha loo baahan yahay waa in carraqaadka lagu sameeyo laga saaro
bal waxaan imika yar tagi doonaa goobta ay biyuhu ka cabayaan bulshadu ay ka biyo dhaansanayso bal qalabka ay ku biyo dhaansanayaan iyo waxba dooga warbixin doontaa nabar goobta tagni waxaan hadda joognaa ama ku suganaa goobta biyuhu bulshadu ay biyaha ka cabayso ama ka dhaansanayso taasi oo ay kaga raranayso dameeraha ay wataan shacabka ka agdhow gidibkani u soo biyo dhaan tagay bal caliyo waxaad iiga warbixisaa qalabkan ama weelkan ay ku cabayaan bulshadu ay biyaha ku qaadanayaan maadaama uu yahay dhaqanadii hore uu ka mid yahay wal warbixin kooban iga sii waxaan ka warbixinaynaa qaridkani waxaan dhaasanayno inuu yahay qarid baa la yiraahdaa waxa laga saaraa xoolaha laga saaraa waxa la geliyaa asal baa la gashaa asal baa loo soo iibiyaa asal baa la gashaa asal buu ku baxaa kaaban dhaasanaa waa harag xoola markaa waa harag xoolaad haragii xoolaha un weey haragii xoolaha oo la farsameeyo oo la hagaajiyo weey biyihiisu waxa weeyin baraf biyaha qabow ka dhigaa galamaseero kala biyaha laga cabayo ka dhigaa wax kululaada maaha ma kululeeyo uu qaboojiyaa waxa yaan dhaasanaa xoolahan kala baxnaa wax kale oo dawladda ay nasiyaan oo naga caawiyaan oo dhaasan ma jiro caagadaha yar ee saliida shambareeyada bariiska lagu darsanayo kuwa ma ku dhaasanaa dadku wax badi weelka ay biyaha ku qaataan waa qaridka hilibka kolkaan xoolaha ka cuneen qalanno hariga dubka kala ka hada ee la tuurayo amba laga sameeyo dibadaha loo dhoofiyo yana anaguna ka dhiganaa qarid oo biyaha lagu dhaasada oo sida barkada oo kala dogarta waan ka saarnaa dogarta waan ka saarnaa waxa hada dubka in bahara jiirkii un bahara hilibkoogana halkaan cunno wax baqtiga kama saarno ee waxa ka saarnaa waxaan qalanno in birayno marka weelka ay biyaha bulshada badidoodu ku qaataan waa qaridka bulshada wadanka waxa lagu qaatay ee la dhaansaday waa kaas waxa lagu safro ee lagu cuntada lagu rarta ee lagu gurta ee magaalooyinka laga iibsadana waa xoolaha hariga laga baxsho umba oli laga dhigtaa kuwa umma iyaguna نما راشين كسو قادنا وبجرا انتي لوغو بيو قادي كرا قياس ahaan qaridku nooc kasiba uu leeyahay in qaadiya 10 litir uu jira ku 20 litir qaadiya uu jira ku 30 litir qaadiya uu jira way kala waaweysay marka xooluhu kala weeyay dadku bas uu kala weeyay xoolaha dadku sidoo dadku u kala dheer yahay bay xooluhu u kala dheer yihiin qaridku sida buu yahay ku gaaban uu jira ku dheerna uu jira أي كل 20 لتر قاضي وجرا كل 6 لتر قاضي وجرا عين كسبة أولي حقا باكسو ماشي ka saartay magaceed meesha raasa jannaalay raasa janna intee u jirtaa gidibkan way u dhawda haye kama sii dheer haye biyaha baan iska cabnaa faa'iidada biyaha ku qabtaan bal iga warbix faa'iidada ku qabnaa anaga ku jannaysan haye waanaga dad iyo dunyaba ku nool haye waanaga ku daaqay dad iyo xooluhu hal goob ay ka wada cabaan halka bay nooga wada cabaan haye waa ku wala fiican haye isku malayn haye isku daaqil haye biyaha jannada aan ku mahadinaayo oo dad iyo dunyaba galaa aroorka maxaad ku aroortaan ma jirka amaad ku dhaansataan shirikaanada iyo waxa aad arki baan ku dhaansanaa waxa soo meerkays waxa baan dhaansanaa qarid baa la yiraahdaa qarid haye intee lagu biyo qaadaa de wax yar oo dhashay 2 kiilo iyo 4 kiilo u qaado oo biyo haye maxaad ku rartaan marka waxaan baan ku rarnaa dameeraha haye ما كم قف فضص أروتان مساحة ديبا دور قف فضص أروت ما يقف بان كوس أروت معلم والبا هاي أضم حوالات بدي مسبيها وبضت المركب وحن باوضنا
كون بيها مدام وحابان اسكو ررنا اسكو دقالينا وان اسكو غينا oo adduunyo reer ku rarna caqabad aad kala kulantaan biyahan ma jiraan may wax baan kala ma kulan dhanka xanuunka biyahan xanuun ma ka dilaa male haye xanuun male waa sidee biyahan dhadhankoodu waa sidee waa macaan waa nacabna adduunka waraabina deehaye waan ku fiicanna waxaa la sameeyay meelaha 10 sano ay joogan 10 sano ay joogan haye ilaa 10 sano ay joogan waa lagu dilin baa lagu jiraa sax xawayaankii way isdamireen xoolihii waxbay u dhimeen markii hore leedii sameeyay baahi intee leeg baad u qabteen kolkii haraad fool xun baan hayay haraad fool yaan hayay eelal qoton oo dheer oo naga go'ay xawayaan dadii duuyo dirgam baa naga sii arnoo xidhaan nidhi waa kana noogu xidhay baahidii waa lagu baahi beelo waa lagu baraaray laakiin isdamirka iyo xawayaankan waxa dhib iyo dhibkeen mar ay gureen ma jiraan mise sidii loo sameeyay ilaa intii way ku jiraan ciidda imaka un bay ciiddo gashay gurni wali dhaguna sanad kale yahaatay iyay guray hay sanadkii ay gureen bal dhibaatooyinka kala soo kulanteen irbaa naga soo gaaray hay hadda imika waa sidee caafimaadkoodu caafimaadka imika waa xareedo waa habfooli caafimaad fiican bay iska leeyihiin laakiin xawayaanka ku dhalanaya ayaa badan xayawaan ku dhashay ma jiraan aragteen hay maxaa kamid xayawaanada ku dhashay waxaa kamid wax sida oo yar xawayaana oo qarida dadka ugu gurma quluuya dadkaba cuna oo daxaash la yiraaho afka oo ilkale oo macal xoolaha cuna waxaayoo dhan bay iyaga ku dhashay dhul beereed ma ka sameeyeen biyahan ya dhul beereed beera shaqa kuma la beer waxaan baa iska dhaqaaqay beer iyo waxaan isma galayaan hay marka duunyada iyo dadku ma meel bay ka wada cabaan biyaha bay wada cabaan caafimaadka waa sidee markii bulshadu cabaan taan xun oo wali balaayay ma leh laakiin xawayaanka kolku isku hadhuudh iyo ma cilad baala biyahan soo gala gidibkan halkii ka soo rogmadaan buur madow ka yimaad ugu shayn hay inta buura wax ka soo dhaadhacaan inta taagan arkaysa inta luuqa halka ka tagay diri dhabo gala hay markay soo biyuhu soo galaan ma fatahaadaan oo dhibaato ma soo gaarsiiyaan bulshada agagaarkan kaaga dhow wax muqooris iyo dad ku dhintay iyo waxa iyo daad kala xidhab maahina wax dhib kala ma leh hay hadda maxaad u baahan tahay in gidibkan laga qabto oo baahida ugu badan ay tahay gidibka waxa loo baahan yahay furtaan horta ina hagaag wax looga siiyo horta waxa la wixii horshaay nakh yada horshaaga kolku dhaafana iyo biyaha noo qabato waa ina hadan lagu xidho halka dawadayal hadda waxaanu la kulannay
howlwadeennada iyo madaxa xafiiska horumarinta xoolaha ee degmada Gablelu oo ku howlan sidii ay daawooyinka iyo talaalka u sii lahaayeen meesiyada kala duwan ee aroorka ama base biyacabka u soo doonanaya gidibkan aan warbixinteedii ka diyaarinay hadda garabkayga waxa taagan Maxamed Ciise oo ah madax xafiiska horumarinta xoolaha ee degmada Gablelu oo ku soo dhaweynaya madax xafiisaad bal ugu horeyn dadaalada aad wadaan ee dhanka talaalka xoolaha bal looga warbixin bismillaah waan duuyahay walaal inaguna ku soo dhawaada degmada Gablelu waxaan joognaa gidibkii degmada Gablelu xoolaha ugu badan haday tahay xoore haday tahay lafajaad haday tahay xoolaha bankan yaalo dhan ay ka cabayeen xoolo ku noolayeen malay degmadu biyo kale oo hadan badanka loo baxsado meesha kaliya xoolaheenu ku badbaadaan waa goobtan aan joogno degmaduna waa degmada ugu xoolo badan gobolka City waad arkaysiin hadda maanta quraatay waxa maraga inuu nooc kasta xoolaha kamid joogo geeli loodi iyo arigiiba sida awgeed anaguna waxaan maadaama cimiladu isbedesho lagu jiro kala bartanka jiilaalka waxaa wadnay talaal iyo daaweynba daaweynta free iyo talaalka xoolaha talaalayno geeli loodi iyo arigiiba sida awgeed ka degmaduna culays ba arrinkaas ka saartay gaariga dhanba lagu madhib xafiiska xoolaha soo dhamaan xoolaha meel kasta joogaan u tago u daweeyo talaalkii u bixisho mar dhaweed xanuun digis la yaaba ka dilacay qabalaha xoore kii isaga doon soo afjarnay haddana gidibkii socona waa ka walaal marka dadaalada wadaani waxay qayb ka tahay dhanka talaalada iyo daaweynta horumarinta xoolaha maadaama sanadkan 2017 culays ka saarnay adeeg bixinta xafiiska maadaama ay olin degmada quraatay oo taalamiigan bulshada xoolo dhaqatada maadaama ku xirantay adeeg bixinteedii adeegiina gaarsino iyo mas'uuliyadda saarnay qasab ay nagu tahay hantida kale bulshada xoolo dhaqatada istaan waa kani cimiladiina imika isbedesho haday tahay daaweyntii iyo talaalkii ka hortaga cimilada talaalku dhowr nooc u leeyahay nooc xanuunku intuu neefka ku dhicin markuu dhito sida halka kaga daba tagi lahayn waxaan qaaday inaan ka hortagno oo prevention ka isticmaalo sida dadka kale xanuunada buuliyooda si dadka loo siinayay looga hortagay talaalada marka xanuun xilliyeed baa jira la yaqaano ka hortag u baahan xanuunada kale sideed ula tacaashaan kadiska soo booda ama idin ku cusub oo kale kuwa kadiska waxaan loo tacaalnaa دواي نوع البارس هذا تاي بنستريبتي هذا تاي أوكسادي يفرمتينتي ما دام دواي كنا أنا حسهم وحي نافك مركو كديس حنود لعو يساق دواين تبى استعمال لها حكمتي لا بيستوعب كل بعض وكورتجيو بقول كيف تضبطه وحن قادرني قيبت الطلال كنا كورتجنا حنوكي صدق خبر ستين دواين بقى قاب كمان هذيك سنة وشدي حول رقتنا وطن تكلا حكومة دوحان الفرن ودر لها بجروب gidibku maadaama aad u weyn yahay inay routine ugu sameeyaan walba talaal joogta sida meelaha laga cabo kale waxay leeyihiin sanadka talaal joogta ay leeyihiin oo heer deegan ku xisaabtamo in kaana lagu xisaabtamo laba in loo carqaado gidibka maadaama ay hadda goobtana joognaa wal biyaha buuxayay oo gidibkii carra naga buuxisay carrada hadina looga qaado biyo badan ma noo fariisan lahaa imika xitaa marada waxa gaadhay sanadkoo dhamaan inuu gidibkii nahay way ay bulshadan ceelal ku jirto ceelka xagan la qoday waa تضوق بس دبي جوكتني سيدا وقتانين أي حكومة أرنتاس أي سيدا ودق سيابا وحنا وقبض ما دام يكون لهم برشة أنت على إيريا جن قبل كنا ولا أرنتان عسلنا أدد ما سنتهي أيوة أي أدد ما سنتهي